wuxuu difaac ka galayaa magaalada Burco la yiraahdo bal gooja cadeyn la sii dul fadhiyay in kale taan arkayna hadii la yiraahdo iyadoo maanta uu soo gaaray deegaanka Daarusalaam ee degmada Galdogob ee gobolka Mudug General Shabeel Cali Garre oo markaasi dalka dibadiisa uga yimid Hiilarti ayaa maanta laba guuto oo ciidan ah oo markaasi ka amba bixi doona deegaanka Daarusalaam iyo sidoo kale degmada Galdogob ee gobolka Mudug waxa uu markaasi ka abaabulayaa si uu ugu xoojiyo ama markaasi ugu xoojiyaan beesha reer Maxamuud ciidamo hore oo ay markaasi u direen beesha reer Maxamuud gobolka Sool meeshan maanta waxaan ka amba bixinaynaa ciidankii raacay labaad oo maaragtay ciidamadii Farqiiq reer Maxamuud baa maanta halkan ka amba baxaya hadii Ilaahay yiraahdo waxaa la amba bixinayaa ugu yaraan ilaa 14 gaari oo tiknik ah iyo laba guuto ciidan oo maartay gaadiidkoodii xamuulka wata ciidankaanu Sool ma aadi doono Sool ciidankii hore jira ciidankaanu wuxuu tagi doonaa coodan lu sii mari doonaa qori meesha la dhaqashay uu mari doonaa coodan le iyo dhaqashay iyo adigu alxaasil ballihiilu tagaya ciidankaanu wuxuu difaac ka galayaa magaalada Burco la yiraahdo bal gooja cadeyn la sii dul fadhiyay in kale taan arkayna hadii la yiraahdo ciidamo kale oo buuhooda ku diyaarsan baa jira oo ayaguna Hiilarti ah oo aanu sii mari doono beesha reer Maxamuud ciidan diyaara bay maanta diraysaa hadafkeeduna waa inay Burco aado ma aha inay Sool aado أذن معنا وحوي وحن عضينا أنا ومرت ورانا ماشي واثق العيد في الوضع بقولها بأنه يشري هذا اللي بيتونها قاري وقربت قيمنا اللي سوي قيمنا ماشي اللي قلت ما عم ببحيسه وحنا كسوة فقان صلينا هذا دارسلام هذا واحد يرتع الذي نصبي أوك بان شو تقولنا أوك راعينا بقى أوك برعو واللي بينا كل كقلنا نسكت إن حاجة كده برشمنا أنه أول إنه سعيدنا حاجة تديو لا بقول باجي هذه هذا هو حاجة شوكي هذا حاجة شوكي هذا كور كلي بدي واضح إنسان وقصة هذا يفرين تمانية دقائق كواذ دعية تكرر عن كقصني برأي كعررين يعني مركا هذا في عيلة بعد ما وضع هذه قبيل كوار محمود ما سمعت قبيل كوار محمود محمود